runtu sheegtiyo isqoraansi baa yimi بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين وناكسن كسو دوادا برامج كحكم وهبين أحدا سنين أي سوق ليسو تاريخ دو أي تلمامي سو تضبط بيش اللحاد جون سند اللبضو كون إيه اللباتنكا وضبط عاوة برامشكات كود جيسان دونتان وحاكمدا كرماجة حجوغو مجفة داتكي كسودي ليري كسودي هر كسودي دعودي سياوداتي هرمر بونا جارسيا مدحانا ما تبنان وعريانك يرفاتكي دباتنا waa banaanbax uu soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir oo garab ka helaya madaxda Villa Soomaaliya oo maanta lagu qabtay Muqdisho dhinaca kalena shacabka gobolka Banaadir ayaa ka tashanaayo ma jiro oday ama siyaasi ama xildhibaan awood u leh inuu yiraahdo waxaan matalayaa gobolka Banaadir xuquuqdiisana luuq la geli karo ama dad waji uga soo karo shacabka waa dibadbax kaloo looga soo horjeedo midkii maanta ka dhacay Muqdisho barnaamijka ayaanu idinku soo gudbin doonaa dibadbaxyadaasi maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay kii lagu taageerayo dawladda tilmaamayna in Muqdisho maqaamkeeda ay ka weyn tahay midka maamul goboleedyada dalka barnaamijka ayaanu idinku soo baahin doonaa waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan maamulka degmada Baraw ee gobolka Shabeellaha Hoose oo sheegay in lagu guuleystay howlgallo wada furisa oo in dhawaanahanba ka soconaya degmada Baraw ee gobolka Shabeellaha Hoose barnaamijka ayaanu idinku soo gudbin doonaa waraysi iyo warbixin la xiriirta howlgalkaasi maalmihii la soo dhaafay ka soconaya degmadaasi ayaanu barnaamijka idinku soo gudbin doonaa waxaa qayb ka ah qodobada kale ee barnaamijka aad ku maqli doontaan taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo sheegay in gacanta lagu dhigay askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya oo la sheegay in lacag laaluusha shacabka ay uga aruursan jireen bar control si lamid ahna ciidanku ay ku guuleysteen gacan ku dhigista xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo ku howlanaa falal amni darro xilli maanta Muqdisho ay ka dhaceen banaanbaxyo waaweyn xubno ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya bar control oo kamid ah baraha magaalada Muqdisho ayaa ku kacay fal laaluush ah oo anshax darro iyo sumcad dil ku ah qayimka iyo sharafta ciidanka waa afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo warbaahinta la hadlay ayaa arrinkan faahfaahiyay barnaamijka ayaanu idinku soo baahin doonaa qayb waxaa ka qodobada kale caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay hadalkii madaxweyne Farmaajo uu ka jeediyay labada gole ee baarlamaanka iyo buuqii ka dhacay xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maxay ka yiraahdeen shacabka barnaamijka ayaanu idinku soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale inta barnaamijka hawada uu ka baxaya dhageysan doontaan abshida jirto waxay tahay in qarka waxa loo saaray dagaal sukeey u dhaco xaqiiqo waa taas inuu Farmaajo sida uu ku wado hadduu si asluub leh waa injineer Cawke Cali Cusmaan falanqeeyo siyaasadeed ku sugan Muqdisho oo sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka shaqeynayso hurinta colaado hor leh oo ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waraysigan oo dhinacyo badan taabanaya barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan waxgaradka degmada Baladxaaw oo dawladda Soomaaliya ku eedeeyay in ay wax ka qaban weysay xaaladda caafimaad darri ee ka jirta degmada Baladxaaw ee gobolka Gado xilli halkaas uu ku sii faafayo cudurka coronavirus barnaamijka ayaanu idinku soo gudbin doonaa qodobadaas wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan
cabduqaadir qoslaaye oo soo saaray ayaa tabinaya barnaamijka. maxamed abuukar cabdi xasan ayaa farsamada ka qaabeynaya. gabagabada barnaamijkana waxaad dhegaysan doontaan. waan dhaliilay xafiisyada waan dhaliilay uma wada dhami qaar baan dhaliilay waan dhaliilay xafiisyada waan dhaliilay uma wada dhami qaar baan dhaliilay maxaad u dhaliisha dhaliishe imeeno aad u dhaliishay maxaad u dhaliisha dhaliishe imeeno aad u dhaliishay warqadaha dhambaalka dhan kastaba ka soo dhaca dhagar qabe waxaa jira aan isdhaafinayno miska dhiganayaa jira. waa tahay dhegaystayaal, heestaas gunaanudka barnaamijka ayaad maqli doontaan. waa mar kale iyo barnaamijka xogmaal. hagaag dhegaystayaal, mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay. goor dhow ayaad maqli doontaan faahfaahinta qodobadii hordhaca barnaamijka aad ku dhegaysateen, balse waxaa ka horeeya dhegaysiga wararka ugu waaweyn gudaha dalka iyo dibadda. saacadihii aynu kasoo gudubnay waxaa soo ururiyey halkan kasoo jeedinaya maxamed abuukar cabdi xasan oo dhanka farsamada ka qaabeynaya barnaamijka. maxamed qoslay, aad baad u mahadsan tahay. waxaa maanta magaalada muqdisho ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo ay kasoo qayb galeen dadyow ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir. banaanbaxan ayaana lagu taageerayay baaqii madaxweyne farmaajo ee ku aadanaa in uu helo matalaad gobolka banaadir. gudoomiyaha gobolka banaadir aana duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish oo goobta banaanbaxaasi ka socday ka hadlay ayaa soo dhaweeyay hadalkii madaxweyne farmaajo. waxa uuna sheegay cumar finish in shacabka magaalada muqdisho ay isugu soo baxeen sidii ay u muujin lahaayeen dareenkooda ku aadan in gobolka banaadir uu helo matalaad siyaasadeed uu xaqa u leeyahay. gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay in magaalada muqdisho oo ah caasimada dalka ay u qalanto matalaad ka mug weyn midda dowlad goboleedyada kale ay ku leeyihiin labada aqal ee dowladda. waxa uuna xusay in nasiib daro ay tahay in muqdisho aysan weli helin mudnaanteeda. afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Sadiiq Yuusuf Cali oo u waramay warbaahinta ayaa sheegay in maanta ciidamada ammaanka ay ka hortageen qaraxyo la doonayay in lagu fuliyo gudaha magaalada Muqdisho. Sadiiq ayaa tilmaamay in ciidamada booliiska ay gacanta ku dhigeen 2 nin oo watay walxaha qarxa kuwaas oo uu tilmaamay in la doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka. afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa tilmaamay in mid ka mid ah raggaasi lagu qabtay agagaarka X Control Afgooye isaga oo qarax ku dhajinaya gaari uu leeyahay mas'uul ka tirsan dawladda. sidoo kale waxa uu shaaca ka dhigay in ninka labaad uu xirnaa jaakada qaraxyada isagoona lagu qabtay dhinaca deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka Shabeellada Hoose kadib howlgallo balaaran oo ay halkaasi ka sameeyeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. dhamme Sadiiq Yuusuf Cali oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in qaraxyadaasi la doonayay in lagu carqaladeeyo amniga Muqdisho gaar ahaan banaanbaxyada maanta ka dhacay caasimada ee lagu taageerayay hadalkii madaxweyne farmaajo. taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda ku dhaxmaray deegaan hoostaga degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool halkaas oo dagaal khasaare geystay uu ka dhacay. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa sheegay in xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab lagu dilay deegaan 20 kiiloomitir dhanka koonfureed ka xiga degmada Xudur ee gobolka Bakool. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Oduwa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in ciidamada ay dileen 37 dagaalame oo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo 3 horjooge kuwaas oo ka mid ahaa horjoogihii u qaabilsanaa Al-Shabaab degmada Xudur iyo nawaaxigeeda sida uu hadalka u dhigay. dhanka kale ururka Al-Shabaab ayaa mar kale sheegtay in askar badan ay ka dileen ciidamo Itoobiyaan ah oo ku sugnaa gobolka Bakool. Al-Shabaab ayaa sheegay in ay weerar culus ay ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo Abe oo qiyaastii 18 kiiloomitir u jiraan magaalada Xudur ee gobolka Bakool
halkaasina ay khasaaro kala duwan ay ku gaarsiiyeen ciidamo etoobiyaan ah. warbaahinta taageerta ururka al-shabaab ayaa lagu daabacay in dagaalkaasi ciidamada etoobiyaanka ah looga dilay ugu yaraan 15 askari oo uu ka mid yahay sarkaal darajadiisu tahay 3 xidigle inkastoo aysan xusin magaciisa. al-shabaab waxa ay sidoo kale tilmaameen in ay waxyeelo soo gaarsiiyeen gaadiidka dagaalka ee ciidamada Itoobiya kuwaas oo uu soo gurmaday ciidankii weerarka la kulmay. dhanka taliska ciidamada Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya kama jawaabin sheegashada al-shabaab ee la xiriirta in ay khasaare gaarsiiyeen ciidamadaasi Itoobiyaanka ah ee ku sugan gobolka Bakool. dalka Liibiya magaalooyin ku yaala waxaa ka socda dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada daacad u ah dowladda Liibiya ee qaramada midoobay aqoonsan tahay iyo maleeshiyaad ka amar qaata Qarnaal Khalifa Haftar oo doonaya in ay talada Liibiya xoog kula wareegaan. ciidamada dowladda taabacsan oo taageero xoogan ka helaya militariga Liibiya ayaa guulo waaweyn ka gaaray dagaaladii ugu dambeeyay ee la galeen ciidamada Khalifa Haftar ee ku sugan magaalada Tripoli iyo magaalooyin kale. war ka soo baxay ciidamada daacad u ah dowladda Liibiya ayaa lagu sheegay in dagaal xoogan ugu qabsaday magaalada Sirta oo horey ay gacanta ugu hayeen maleeshiyaadka Khalifa Haftar uu hogaamiyo. dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Sirta iyo goobo kale ayaa looga adkaaday maleeshiyaadka Khalifa Haftar, waxaana wararku ay sheegayaan in ay hadda xaaladda ku xun tahay Khalifa Haftar oo horey looga saaray garoonka diyaaradaha ee Tripoli. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha carruurta UNICEF ayaa si kulul u cambaaraysay weerar ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda ee Congo oo lagu dilay 16 qof oo 5 ka mid ah ay carruur yihiin. carruurtan ayaa ah gabdho ay da'dooda ka hooseyso 15 sano. wakiilka UNICEF ayaa xusay inay cambaareynayaan dilkan loo geystay carruurtan oo aan waxba galabsan. weerarkan ayaana ka dhacay tuulada Maasa ee waqooyiga magaalada Bunia oo ka tirsan gobolka Itura. wararka ayaana intaa ku daraya in 16 qof ee la dilay ay dhammaantood ahaayeen barakacyaal hore oo dib ugu soo laabtay tuulada. tan iyo bilowgii sanadkan rabshadaha ka taagan gobolkaas ayaa sababay dhimasho in ka badan 300 oo qof. ugu dambeyntii madaxweynaha dalka Lubnaan ayaa ku baaqay midnimo qaran kadib rabshado saameeyay magaalada Beirut. waxay isku dhacyo dhexmarin taageerayaasha xisbiyo siyaasadeed oo iska soo horjeeda. dalka Lubnaan ayaa xasilooni aan buuxin ka jirtay tan iyo 90-meeyadii kadib dagaalo sokeeyay oo ka dhacay intii u dhaxaysay 1975 ilaa 1990. dhageystayaal waa nageynta dhacdooyinka caalamka aan dib idinku celiyo xogmaal iyo qeybaha ka haray quslaaye. aad buu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa waryaheena Maxamed Abuukar Cabdi Xasan oo inala socodsiinayay wararka ugu waaweyn gudaha dalka iyo dibadda saacadihii aynu ka soo gudubnay. markaan dhageystayaal si toosa ayaanu u gudagalaynaa faahfaahinta qodobadii hordhaca barnaamijka aad ku maqasheen. inta badanna waxaan barnaamijka ku dul istaagi doonaa dibadbixii maanta ka dhacay iyo sidoo kale waraysiyo la xiriira saameynta ka dhalan karta boqolaalka qof ee mar isu yimaaday iyadoo dowladda ay waday dadaal lagu xakameynayo cudurka coronavirus. aan ku horeyne waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay 2 dibadbax uu mid soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir oo garab ka helaya madaxda Villa Soomaaliya. dibadbaxaas oo ka dhacay dhabaha dheer ee wadada Maka al-Mukarrama iyadoo shacabka ay isugu yimaadeen taalada daljirka Daahsoon iyo sidoo kale isgooska number 4. boqolaalkii qof ee isugu yimaaday isgooska number 4 ayaa waxaa warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Cumar Filis isagoo halkaa ka jeediyay khudbad uu kaga hadlayay dibadbaxaasi oo uu sheegay in shacabka Muqdisho ay muujinayaan taageerada hadalkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku aadanaa in golaha labada gole ee baarlamaanka uu kaga codsaday in Muqdisho ay hayso maqaam isla markaana ay ka hesho golaha aqalka sare ee baarlamaanka. gudoomiyaha ayaa sidoo kale tilmaamay in maqaamka Muqdisho uu mudan yahay midka ugu wanaagsan isla markaana ka sareeya maamul goboleedyada. waa sidoo hadalka u dhigay. waxaa sharaf noo ah dhammaanteen inaan isugu soo baxno barxadda weyn isgoyska number 4 innaga oo taageerayna codsigii madaxweynuhu u jeediyey labada gole ee baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka.
madaxweynuhu sida aad ka warhaysiin wuxuu labada gole ka codsaday gobolka banaadir matalaadii siyaasadeed inay labada gole ay u oggolaadaan middaas ayaa keentay bulshada gobolka banaadir oo damiirtoodu ay sarrayso shucuurtoodu ay sarrayso inay maantay isugu soo baxaan qaybo badan oo ka mid ah fagaarayaasha gobolka banaadir walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin sharaf ayay noo tahay innaga inaan idinkala soo qayb galno bannaanbaxan aad ku muujinaysaan dareenkiinna ku aadan magaaladiinnan in muddaaba aan lahayn wax matalaad siyaasadeed ah magaalada muqdisho waa caasimaddii dalka soomaaliya waa meeshii ubuucda ama xuduudda u ahayd dhammaan dalka oo dhan waa xuduntii aqoonta waayo qof kasta oo soomaaliya oo dalkiisa wax ku bartay waa meesha uu jaamacad uga baxay ma jirin muddadii 31 sano ahayd burburka ka hor jaamacad dalka soomaaliya ku taalla qof ka baxay oo soomaaliya oo aan uga bixin jaamacadda magaalada muqdisho waa caasimaddii dalka magaalada muqdisho oo ku taalla gobolka banaadir maqaamka caasimadda iyo matalaadda gobolka banaadir waa waxa ay mudan yihiin reer banaadir waa waxa ay mudan yihiin reer muqdisho sida aad la socotiin in muddo ahba waxaa la hadal hayay sidii matalaad siyaasadeed loogu heli lahaa gobolka banaadir sidoo kale in la dhammaystiro statuska ama maqaamka magaalada muqdisho dadaalladaas ayaa dadaallada socda oo lagu raadinayo matalaad gobolka banaadir ah iyo maqaamka caasimadda ayuu madaxweynaha jamhuuriyaddu ku dhiiraday munaasabaddii furitaanka kalfadhigii 7aad ee labada aqal inuu mudanayaasha baarlamaanka u soo jeediyo codsi ku aadan gobolka banaadir in la siiyo matalaad u qalanta matalaadda gobolka banaadir u qalantaa macnaheedu waxay tahay waa matalaad ka weyn ka macno sarraysa ka ballaaran matalaadaha dawlad goboleedyada mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal magaalada muqdisho waxay u qalantaa macno badan matalaad sare oo ka mug weyn matalaadaha dawlad goboleedyadu dawlad goboleedyadu waxa ay leeyihiin matalaado siyaasadeed hadday ahaan lahayd aqalka sare iyo aqalka hoose ee golayaasha sharci dejinta macquul ma aha
suuragal ma aha caqligal ma aha inay muddo 20 sano ah afka oo lagu haayo wax ficilana aan loo tallaabsan in la asteeyo maqaamka muqdisho sidoo kale waxaan la aqbali karayn matalaad la'aanta siyaasadeed ee gobolka banaadir inay sii socoto waxaa kale oon la aqbalayn matalaad ka hoosaysa dawlad goboleedyada in loo asteeyo magaalada muqdisho ama gobolka banaadir annagoo ku hadlayna codka shucuubta ku nool gobolka banaadir iyo codka shucuubta ku nool magaalada muqdisho waxaan halkan mahadnaq ballaaran uga soo jeedinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda oo si xilkasnimo ah si dareen wadaniyeed uu ku jiro dhinaca kalena qayb ka mid ah muqdisho ayaa isna waxaa ka dhacay dibadbax kale oo ay dhigeen qaar ka mid ah shacabka muqdisho kuwaas oo ay sheegeen in ay kaga soo horjeedaan in la siyaasadeeyo xuquuqda iyo maqaamka gobolka banaadir iyo in ay ka soo horjeedaan hadalkii shalay ee madaxweynaha Soomaaliya dadkan bananbaxa dhigay oo isugu jiray odayaal dhalinyaro iyo haween ayaa isu soo baxay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir waxaana ay ka dalbanayeen in gobolka banaadir dadka ku nool ay helaan xuquuqdooda qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa sidaan yiri wax laga weydiinaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xuquuqda gobolka banaadir waxa iska leh weligeedna u taagan haddana u taagan shacabka gobolka banaadir ayaa ka tashanaayo ma jiro oday ama siyaasi ama xildhibaan awood u leh inuu yiraahdo waxaan matalayaa gobolka banaadir xuquuqdiisana xuquuqdeedana luuq la geli karo ama dad weji uga suubsan karo shacabka gobolka banaadir waxaan ka dagaalamaynaa oon diidanahay dulmiga iyo waxa la sheegayo oo dastuurka qodobka sagaalaad oo warkii ka soo yeeray madaxweynaha oo ahay in gobolka banaadir lagu dhaqaayo qodobka sagaalaad haddii aan lagu dhaqin Jubbaland banaadir laguma dhaqaayo qodobka sagaalaad haddii aan lagu dhaqin Puntland banaadir laguma dhaqaayo qodobka sagaalaad haddii aan lagu dhaqin koonfur galbeed banaadir laguma dhaqaayo qodobka sagaalaad haddii aan lagu dhaqin haddaan lagu dhaqin galmudug gobolka banaadir cid ku dhaqi karti ma jirto gobolka banaadir laguma qaadan karo afduub laguma qaadan karo laaluush gobolka banaadir laguma qaadan karo oday laaluush la siiyey xildhibaan laaluush la siiyey laguma qaadan karo haddaan nahay dhallinyarada gobolka banaadir ku dhashay una dhashay ahna dadka deegaanka gobolka banaadir waxaan ognahay waddanka Soomaaliya inuu yahay federaal 18 gobol ah 17 gobol miisaaniyadooda labada aqal ay heleen annaga gobolkeena miisaaniyadeena waqtiga heleen waxaa la dhaafay iyo qodobka sagaalaad aan lagu dhaqaa waa qaar ka mid ah dadkii muqdisho maanta dibadbaxa kala duwan ka dhigay isla markaana qaarkood uga soo horjeedeen hadalkii madaxweynaha iyo sidoo kale helidda maqaamka muqdisho qonkaan israacine qarannimo waxay tahay qonkaan israacine qarannimo waxay tahay qiimaheeda lumiya cadowga qabsada oo qabow kuma nastaan markan Baraawe haddii aynu eegnana maamulka degmada Baraawe ayaa sheegay in lagu guuleystay howlgal dhaba furis ah oo maalmihii la soo dhaafay ka soconaya degmadaasi gudoomiyaha degmada Baraawe oo wareysi siiyay idaacadda Star FM goor sii horeysay ayaa sheegay in maamulka iyo shacabkaba ay ku guuleysteen dib u daacatirka dhabayaasha degmada Baraawe ee gobolka Banaadir isagoo sidoo kale tilmaamay in xaaladda caafimaad degmada Baraawe ay wanaagsan tahay hase ahaatee buu yiri in weli ay baahi caafimaad ka jirto degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose Cumar Sheekh Cabdi Shafaana gudoomiyaha degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose oo goor sii horeysay ee waramay ayaa arrimahan ku faahfaahiyay wareysigan caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee degmada Baraawe ayaa waxaan ka bilaabnay barnaamijka isxilqaan oo ololo nadaafadeed ay ku saabsantahay ma garatay waa gartay xilqaankaas oo yahay dadka degmada iyo xaafadaha inay isku xilqaamaan sida degmadooda u horumarsan lahaayeen
annaga maamulka degmada Baraawe ahaan waxaan mar walba maanaa shacabka maanaa ku dhiirigelinaa sidii degmadooda u horumarsan lahaayeen haddaan nahay oo maanaa maamulka wuxuu u taagan yahay sidii degmada loo horumarsiin lahaa ma garatay waa gartay jawiga guud magaaladana aad ay u wanaagsan tahay maadaama oo hadda maanaa ay ku jirnay xaaladda guud ee marka oo dhanka caafimaadka laga hadlo COVID-19 annagoo taas maanaa u fiirnay in oo maanaa aan u helno nadaafad wanaagsan inaan u helno hawshina way socotaa alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaa kaloo hadda noo bilowday maalmahan aan wadnaa wadada isku xirto maanaa magaalada Ambareeso iyo degmada gudaheeda ayaa maanaa wax isxilqaan in lagu dhisaa maanaa qorshiyaan wadnaa marka carakaawadii iyo jaygii iyo waxyaabahaasna maanaa waa isku targalnay in degmada ay ku dhistaan maanaa xoogooda iyo muruqooda laamigooda ay ku dhistaan ma garatay waa gartay guddoomiye degmada Baraawe koonfur galbeed marka loo fiiriyo iyo xaaladda caafimaad ee cudurkan halista leh coronavirus waxa ay ka mid tahay deegaanada uu sida aadka ah uu u saameeyay cudurka marka maxaa keenay in intaasi uu ku faafo cudurka runtii siday ogtahay cudurkan waa dabeelo oo wato annaga maanaa runtii markaa kala hadlo wax rabbaani annaga maanaa awoodaan hadda ku reebno ilaahay abuurta ma jiraan runtii degmada Baraawe way saameysay cudurkan COVID-19 laakiin alxamdulillahi rabbil caalamiin saaka maantaan kula hadlayo inaan wax ka sheegno degmadii hadda maanaa cudurkii taagan kuma dhihi karno laakiin horiya maanaa u soo dhacday waa inagu dhacday wayna saameysay dad baa maanaa astaamo noocaas ku dhinteen kiisas oo laga helay way jirtay laakiin alxamdulillah hadda aad ay u wanaagsantahay ma garatay waa gartay marka mid taas ay tahayna maanaa dadaal badan oo loo galay dhanka iyo dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed oo ugu horeeyay madaxweyne Cabdicasiis iyo xafiiska prime ministerka waxaan ka helnay daawooyin kaalmo ah dhanka caafimaadka oo lagu talgalay COVID-19 runtii arrintaas aad iyo aad maanaa noogu muhiimsaneeday wax badanna way noo qabatay alxamdulillahi rabbil caalamiin saaka waxaan inaan wax ka sheegno saaka inay maanaa xaalad caafimaad oo hadda maanaa oo la ildaran ama qof oo maanaa cudurkaas hadda oo lagu sheegayo ma lahan laakiin way naga soo dhamaatay aan leenahay inkastoo laakiin cudurkan oo cudur oo dilaay uu yahay uusan maanaa qof walba maanaa adowga shabaab oo maanaa ay ka adowsan yahay marka taasaan filaa ogaana maanta waa ka wanaagsan tahay sidii hore oo uleeskii horena hay jiri maantana ma heedo waa tahay guddoomiye agabka caafimaad ee aad ka hesheen dowladda ama koonfur galbeedba ma ku filan yahay ka hortagga caabuqa runtii horta maanaa laba diyaaradood xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu soo maanaa naga soo gaartay runtii iyo takhaatiirana soo gaartay takhaatiirtii bishii ramadaan oo taariikh 5 markay aheedeen soo gaareen wax badanna maanaa way naga anfacday laakiin runtii maanaa daawadaas annaga naguma filno har iyo habeen maanaa mar walba waxaa loo baahay in la helo maanaa oxygen la helo iyo sariirihii la helo iyadoo taas ay tahayna dowladdii way naga ballan qaaday inay arrintaasna soo gaarsiin doonto runtii wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa naga ballan qaaday sida maanaa waxyaabaha ay ka dhiman ama cuduraha astaamahaas inay na soo gaarsiin doonaan alxamdulillahi rabbil caalamiin kolley hadda maanaa annagana ayagaan kaba sugi doono hadduu ilaahay idmo laakiin waan rajaynayna inay barnaamijkaas na soo gaari doonto hadduu ilaahay idmo mararka qaar degmada Baraawe waxaa ka dhaco falal ka baxsan amniga guddoomiye arrimahaasna way ku soo laalaabatay degmada awoodda maamulka miyaa yar mise khatarta ayaa culus waa mahadsan tahay runtii horta markaan kaala hadlo nidaamka amniga markaan kaala hadlo Baraawe maanta waa meeshii la isku haleyn karo sababtoo ah maamulka degmada Baraawe ilaamihiisa amniga isla kaashanaya har iyo habeen iyo walaalaha Amisom ayaa har iyo habeen u taagan sidii degmadooda u difaaca lahaayeen shacabkooda iyo tuulooyinkooda ku hareeran oo mana degmada ay u difaaca lahaayeen Baraawe maanta waxaan ogahay aan aaminsanahay in mana habeenkii 8 markaas soo baxday in shabaab amana gaadmaad aan kugu sameyn karin amnigeeda iyo shacabkeeda ayaa mana israacsan runtii waa dareemi kartaa hadday shacabku ku raacsan yihiin meesha inay waxba mana ka dhici karin laakiin hadda shacabka oo mana oo dawladooda diidan yihiin markaas mana falal amni darro ka dhici karta laakiin shacabkii iyo maamulkii iyo degmadii iyo amnigeeda aad isku raacsan yihiin runtii falal amni darro haddaad maqashana runtii dadka barnaamijkaas ay ku sheegeen hogaayar mana warka weli ma hubsanne waxaan dhihi lahaa warka mana idaacadaha la siinayo inay mana hubsadaan waa garatay marka caadi mana markii amnigan iyo aad iyo aad ay u wanaagsan tahay waa la isku haleyn karaa waxaan hubaa aan ogahay haddii madaxweyne farmaajo oo mana degmadan bara uu soo booqdo waxaan aaminsanahay inuusan mana ciidamo shii u baahnayn mana 5 qofood inay ku filan tahay mana amnigiisa ay sugi karaan ma garatay
waa gartay gudoomiye fariinta ugu dambeysa ee aad shacabka degmada Baraawe u dirayso maxay tahay shacabka degmada Baraawe ku nool waxaan leeyahay dhammaan shacabkayga ay ku dhaqan degmada Baraawe aad iyo aad ugu mahadcelinaya dadaalka badan ayaga ay wadaan iyo isxilqaanka ayaga mana xoogooda mana degmada ugu tabruceen dhammaan jaaliyadaha ay kasoo jeedaan degmada Baraawe ayagana mana ay degmadooda wax badan ay u hayaan annagana mana maamul ahaan mar walba waxaan ku ammaanaynaa maamulkii waxay ku ammaanayaan shacabkii degmada waxtarkooda iyo isxilqaankooda iyo awoodooda mana ay mar walba mana ay la garab taagan yihiin maamulkooda annagana tan maamul ahaan mar walba waxaan la garab taaganahay shacabkii sida loo horumarsiin lahaa dhammaan goobihii waxbarashada iyo caafimaadka inay mana u horumarsiin doono insha allahu tacaala waan rajaynaynaa inaan barnaamijyaasna horumarsiino hadduu ilaahay idmo aad iyo aad u mahadsantiin bahda Star FM qarada adduunyada la isu qoonsay nabadii uwad la isu sheegtiyo isqoraansi baa yimi weli barnaamijka xogmaal ayaa dhageysanaysaan markaan haddii aan ku soo laabanno shacabka muqdisho qaar ka mid ah shacabka muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay hadalkii madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale buuqii ka dhacay xarunta golaha shacabka qaarkood ayaa soo jeediyey in madaxda dalka ay fiiriyaan baahida bulshada Soomaaliyeed iyo sidoo kale helidda amni wanaagsan waxa ay qaarkood taageereen hadalka madaxweynaha iyagoo dhaliilay xildhibaanadii buuqa ku furay khudbad jeedintii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa kuwan qaarkood oo la hadlay Star FM shacabka una qabateen gaara ayaa lagu hayaa dawladdu waxaanu leen wadooyinka nagu xidhiidhisay meydkii meel la mariyo ayaa la la'ay meydkii qofkii dhinta gaari lagu qaado meel la mariyo la la'ay معقول ما أبني كوا كل شقين يوا كون كيد أنت أنت لما مرينا يا هداد ترى معقول ما دولة وهذه وأنا كفر سكيل مدهس أبني إله ما سوق ددال بنا لا فرق ددال أضل ددال إذا كنت ددال إنك نوع إذا كنت بجنا لكن سما معقول ما قلت أنا هنا تاسع هجام مرينا ميت كيد أنت هجام مرينا إنه ميت سيدنا أو كسرنا إسبيتال كمدينة أيام ما قرنا سمال أن مرينا لا قال ما أنت سي سقال ساعة نقول قادي سبع ساعة ميت كيلا قادي لها سقال ساعة نقول قادي مال مريم ملا مال ولا عيد بافرديا هسه هاته ورا أن وضع شقينه أما أنك كل تقنو ماشي هذا ويتيسay wixii shalay baarlamaanka ka dhacay runta marka loo hadlo dhaqan wanaagsan ma ahayn dad baarlamaanina inay foorfooriyaan la waa laga wanaagsan yahay wax kastaana waxay ku wanaagsan yihiin in ixtiraamka iyo la muujiyo iyo muxuu ahaa dadnimada inaan laga tagin waxaan arkayay nin weyn oo Faranbi haysta xildhibaankuna had iyo jeer xasaanad buu leeyahay edeb buu leeyahay anshax buu leeyahay dad dhan baa soo doortay wixii khaldan inuu toosiyaa muhiim ah laakiin inuu isaga sidii ciyaala suuqa jooga u dhaqmo sax maaha markaa shalayto wixii meesha ka dhacay ma wanaagsanayn kor iyo hoos teeda kale waxaan ku darayaa Soomaalidu hidda iyo dhaqan uma laha hoggaan wanaagsan waa xaqiiqo jirta marka laga soo bilaabo maalintii xornimada qaadatay ilaa iyo maanta waxa weeyaan hoggaan wanaagsan ma jiro yeelkadeeda waxa la yiraahdaa cadaab bay ka subxaanallaysataa xilligan ugu dambeeya ninkan jooga Farmaajo runta marka loo hadlo ninkaasi wax buu qabtay wax wanaagsan buu qabtay waliba wuxuu yimi wadan lala baxay xataa xididadii dhulka ku jiray lala baxay buu yimi wax wanaagsan buu qabtay ninku marka uu culayska saaro ama miisaankiisa isugu geeyo laba waxyaalood waa laga yaabaa ninkaasi inuu guulaysto ciidamadu hadday noqdaan first priority koobaad tixgelinta koobaad hadday yeeshaan nabadgelyaduna ay noqoto tixgelin marka ciidanku yimaadaba nabadgelyadu timaada ninku hadduu labada xoogga saaro ninkaas waxba u bilaaban maamul goboleedyaha waxaan dhihi lahaa kuwa hadda u soo haray kuwa ay ka taqaluseen khayr laasi waa fiican aad baan ugu faraxsanahay kuwaas ay ka taqaluseen aad bay u fiican yihiin kuwan haray oo la shaqeyn la intii systemka ay heesaan nidaamka ha lagu bixiyo ninkii markaas aan rabin inuu nidaam ku baxana waxa waaye dawladda ha la shaqeeyo marka waxaan dhihi lahaa
dowladda shacabka Soomaaliyeed wax badan ay qabatay haddii wixii soo hor aan loo xiisin waxaan ilaa dowladda aad iyo aad bay u mahadsan yihiin wax badan ay sameeyeen wax badan ay qabteen qaraxan oo sequence ahaan jira without a number of time iska dhici jiray oo countless ahaan jira horta waa u yaraaday magaalada xor loo mari jirin حتى waxaan xasuustaa xilliga xasan sheekh maxamuud oo aniga madaxdiisa waxaan xasuustaa in gaariga xataa cabdibilaha uu askariga xataa uu shacabka aamineen waa marka waxaa jira isbedel badan jira waa isbedel kana time ku imaada waqtiga ku imaada dawladda halala shaqeeyo xildhibaanahan waxaan dhihi lahaa oo calooshood u shaqeeyaasha Soomaaliya ogaada ninkaas isaga qabiil wax ma ku taraaya haddii aad dooratana maalinkaad wax uga baahato waa loo yahay inuu telefoon ka qabanin waa loo yahay inuu ku xiriirin waa loo yahay inuu iskuul wixii marka loo sameey aha asaasiga nolosha inuu wax barasho ka shaqeeyo inuu scholarship kan waa loo yahay scholarship qaar waa gata xildhibaanna gata waa shalay waxay ahayd qodobka Syria oo madaxweynaha inuu jeedin laga rabay taa bedelkeeda wuxuu soo jeediyay khudbo laga argagaxo sababtoo ah in uu yiraahdo waqti xaadirkan waxaan qabanaynaa doorasho qof iyo cod ah waliba oo madaxweynuhu uu ku adkaysto wax mandiqa iyo loojiga iyo dadka aqal ay aqbali karaan ma aha waxa la og yahay amniga soo yahay dhibaatada waddanka ka jirta la og yahay in waxa u dareemay eragaas markuu madaxweynuhu dhahay in shacabka Soomaaliyeed aysan ahayn dad oo xoohay wax wax ma garata amal u dhigto sababtoo ah in aad inta la soo istaagta aad tahay doorasho qof iyo cod aan qabaha waqti xaadirkan wax mandiqa oo loojiga ma aha xaqiiqatan in filim bila yeeriyo oo meesha wax ka dhacaan أنا أهانتي وما أركو وحيث كيسة أما أخلاقيا وما أركو صابته waxa waaye qofku xarro codkiisa iyo waxa uu wanaagsan inuu ku gudbiyo laakiin wuxuu qofku marka qaar wuxuu sameeyaa si uu masiirka ummadda iyo dhibaatada markuu arko si wax ku gudbi karo ku gudbinaya shalay madaxweynaha waxyaabo fara badan oo muhiim ah ayaa ka hadlay arrintii badda oo ayadana buuq badan ka taagaya ma uusan ka hadlin dadkii ugu dambeeyay ee gololey lagu dilay 8 qof dhaqaatiirta xataa kama tacsiin waa xaqiiq yani waa wax dhibaato aad u weyn inuu madaxweynaha inta soo istaago oo yiraaho waxyaaba oo masiirka uu ka hadli waayana waxayna noqotay wax aniga oo aan ka argagaxno qof kastaba de shacabka Soomaaliyeedna waxaan u rajaynayaa in doorashada waqtigeeda ku dhacdo la qabto waxaan ergaas aan ka dareemay inuu yiraahdo doorasho qof cod macna waxay ka dhigantaa waa ku darsanaya yani waxaan ku heshiinin oo anaga aan ku heshiisnaa waa dastuurkaas dastuurka qofka ixtiraam way la ixtiraam maayo dastuurkaas waa waxa ummadda Soomaaliyeed heshiis ku yihiin waa isku dhiib waa waxa anaga inta aan ku soo gaarnay waa nabadan yeesta waxaan ku haysano qofkaana ixtiraamina anaga ixtiraamin madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waaye afartiisana waa soo dhameystay ha ku kalsoona nafsidiisa xawaha doorasho ha galo waqtigiisa waa dhamaaday asaga iyo xawaha iyo nasiibkiisa waxay aayeen qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo aragtidooda dhiibanayay siyaasado qarsooniyo qosolaan qalbiga jirin been baa lagu khaldaa si loo qaybiyo Soomaaliyeed mid qura noqo weli barnaamijka xogmaal ayaad dhageysanaysaan goordhow waxaan idin soo gudbin doonaa taliska ciidamada booliiska oo sheegay in gacanta ay ku dhigeen xubno ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kale ciidamo booliis ah kuwaas oo lacaga laaluusha ka qaadanaya shacabka Soomaaliyeed bar control oo ay iyagu sameysteen balse aan ka hormarsiiyo injineer Cawke Cali Cusmaan oo ah falanqeeyo siyaasadeed ku sugan Muqdisho oo goorsii horeysay iyo warramay ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka shaqeynayso hurinta colaadaha isla markaana aan xilligan loo baahnayn ka hadalka maqaamka Muqdisho waxa uu sidoo kale eedeyn u jeediyay in dawladda Soomaaliya ay ku dadaalayso ka hortagga xanuunka coronavirus isla markaana dawladda ay iyada ka shaqeynayso dhibaateynta bulshada Soomaaliyeed maadaama in ka badan 100 qof ay maanta isugu soo baxeen magaalada Muqdisho ayadoo waxa dhanba ay dhicin anaga aan hore uga hadalna iga soo baxay waxa waa waxaan fiicneen waay in golihii baarlamaanka buuqa aragtay ay keenaan sababteedana waa dareemi kartaa waxa ay tahay qof walba aqlan uu dareemi karaa maxay kula tahay marka in hadalka madaxweynaha shalay uu khudbaynay ee waqtiga uu ku soo aaday in marxaladda hadda lagu jiro ee dadka corona ay dhibaataysan yihiin qof walba aqlan uu dareemi karaa meeshan waxa ka jirta miisaaniyad xumo waxa ka jirto taxadir la'aan waxa ka jirto danaysi waxa soo socdana wax qurux badan ma aha waxaan u maleynaa sidii saan ugu socoto sheekada sidii waagii hore aan 30 sano ka hor waxaan soo marnaan dib ugu laaban doonaa u maleynaa haddii aan dul istaagno hadalkii madaxweynaha uu ka jeediyay golaha shacabka waxyaabihii uu sheegay waxa ka mid ahaa golahana ka codsaday in maqaam la siiyo caasimadda Muqdisho adi maxay kula tahay
walaalow waxay ila tahay waa barnaamij hor leh oo riwaayadda raadiyaha waxaasna wax ka suuragalaya haba yaraatee ma jirto abowow ma alla laga baqo war gobolka hiiraan dadkii deganaa iyagay isku direen oo isla dhashay ay isku direen wax ay qabtaan iska dhaafe maamul goboleedyada hadda ay dhiseen ee gacan kuramiska ee kulligoodba waa qabiil qaabdarro iyo wax aan dan dadka ugu jirin ay dadka ku mashquuliyeen haddana gobolkii banaadir ay rabaan haddana mashaqo kale horle inay ka abuuraan ma fahanti maxay tahay marka cabsida jirta cabsida jirta waxay tahay in qarka waxaa loo saaraya dagaal sokay uu dhaco xaqiiqa waa taas inuu farmaajo sidaa wax uu ku wado hadduusan si asluub leh oo ehelnimana sidii shalay lagu doortay waktigiisa waa dhamaaday uusan uga degin waxaa hubaal ah in dagaal sokay uu imaanaya sababtoo ah waxa meesha yaalla wax soconaya ma ah walaalow hadda markuu siinaya muqdisho uu maqaam siinaya markii la dooranaya muxuu siin waaya haye markii shalay la dooranayo muqdisho maqaamka hadda ay leedahay sooma lahayn laakiin wax walba nidaam iyo wakti ayay u baahan yihiin maya nidaamka waktigu wax ku raadinaya waxay tahay muddo kororsi inuu dib ugu laabto wadanka waxaasna wax soconaya ma aha waktigiisa waa dhammaadee iyadoona dib dhicin farmaajo wax waa qabo waayey sheekada baraaja ku dhamaatay isdhiibo isaga dego hadduu sharaf rabo waayo haddii kalena wax ay ku socoto waa arki doonaa wetsand dabeed wax sariirta hoosteeda ku jira waa isla arki doonaa awke wakti yar ayaa u harsan dowladda madaxweynaha si cad ayuu shalay u sheegay in doorasho qof iyo coda ay ka dhaceyso waktigiina waa yar yahay cabsi badanna way qabaan siyaasiyiinta haddaan taas kaala hadlo waa wax qayrul caadi waa wax ka baxsan heerka qiyaasta aadanaha wax gartay wax dhici kara in qof iyo cod doorasho ee soomaaliya ay ka dhacdo ma jirto waa dadka la madadaalinaya nimankan waa fashilmeen wax waa qaban waayeen intay soo qabteenna khayr allah ka siiyo ha iska dhaafaano haddii kale waxa dhan ay wadaan wax ka soconaa ma jirto bishaan maqaab u yeelinaa waa been maamul goboleedyada ay soo dhiseen waa been mala abaal waay waxaa xaqiiqa waxay tahay hadday rabaan in dib loogu celiyo marka 4 sano waxay qaban waayeen berri ma qabanayin waxaa hadda is leedahay dowladda damac kale ayay ka leedahay arrimaha socda ujeedada ay ka leedahay waa laba qodob baan kuu sheegaa inay dadka reer muqdisho ay isku dirto ay isku dagaalaan awood qaybsiga gobolka banaadir yaa leh gobolka banaadir jifadee awood badan meeqa qabiilaa tegayso in dagaal meeshaas uu ka dhaco waa midda ay raadinaya waa qodob iyo inay ka helaan cod ah in muqdisho laga doorto maxaa la gudboon marka waxaa la gudboon qof walbo soomaaliya oo damiir leh oo wadani ah oo dhibka soomaaliya uu soo maray ka dimqanayo ay tahay waktigoodu way dhamaaday hadday macaan yihiin iyagaa loo yeeran doonaaye waxba darbiyadaysan qabsanin xaalka dalka dhanka caafimaadka waad la socotaa maanta muqdisho waxaa ka dhacay 2 dibadbax oo midna lagu taageerayo dowladda midna dhanka kale ah in dowladda ay jawaab cada ka bixiso dadkii lagu laayay gololey bal saameynta caafimaad ka dhalan karta maadaama dibadbixii dowladda laga rabay inay xakameyso caafimaadka ay qayb ka qaadanayso isu keenta bulshada waayo ma jir haddana wax ka iraa annaga wax badan ognaa marka aan kule gololey dadka lagu laayaan lahay su-aasha weydiinta badan taas ahay haye ayada naftirkeeda salka waxay la gelaysaa dowladda naftirkeeda anaa runta ku sheega haddii la dabagalo dadka masaakiinta ee MCH ka shaqeynaya ee gobolkooda ka shaqaysanaya baaba loo geystay qabiilkaas lagu baabi'iyey meesha dadka wadaniyada oo wadankooda ka shaqaysanaya haddii la fiiriyo cidda ka dambaysa dowladday noqonaysaa sidaan annaga hadda ka warqabno ma fahanti annaga taasi ma ka warqabno annagaa ka warqabno oo dadka codadka kasoo baxaya gobolkaas 80% waxay u badan tahay in dadkan ay si cad u laayeen dowladda federaalka waa tahay haye marka haddiiba dhinacna dadkii oo xasuuq ka jiro ay doorasho iyo ku gorgorsamayaan marxil doorasho laga hadlayo dadku waaba tacbaane maaqoodaya maalmood tabla sii duugaya waa ogtay isu soo bixii maanta dhacay iyo saameynta caafimaad ka dhalan karto maxay kula tahay isu soo baxa maanta dhacay kulley tablaba weji u ahay waxaa ka imaan kara in la isku baabo sababtoo halkii qof meel qof wada taawara cudurkan corona waa aragtee baabuurka adiga furta bis hadduu qof kaa daba furo waa qaada sida hadda uu yahay cudurada faafo oo halista ewa intaasoo ummada qofoodna inuu asaga wax aldagtiisa maanta iskugu soo baxeen haye abaabulkaas annaga waa ognaa dowladdaa ka dambeysay ma fahanti marka maxaa soo aruuraa marka waa dadkii hala laaya lee socoto marka anaga farmaajo nin sharaf laan ku ogaay nin waxaan ku ogaay reer magaale nin shalay cod shacbiyad lagu doortay nin jaceyl dad lagu doortay wixii way sii yaraayaanayaane hadduu kusii socdana xume isku bedelaysaa inta la jecel yahay farmaajo ha iskaga tago meeshaan falanqeeyaa tahay waa la socotaa xaaladda dalka ugu dambeyn maxay kula tahay in dowladda la gudboon oo xal u ah bulshada iyo dowladdaba horta dowladda waxaa xal u ah intaan marxalad walba ay wadankan soo gaaraba dowladaa soo gaarsiinaysa oo ayaga ka horreeyay ma fahanti
way fiican yihiin walaal jiro madaxweyneyaal jiro ra-iisul wasaare jiro way soo qabteen heerkaanay hadda keeneen heerkaan ciddii kasii wadi leed si sharaf inay uga simaan ummaddaanna wax ay iyada raalli ka tahay in lagu maamulo dadka halala tashto maxaa lidinku maamulaa ma kitaabkaa lidinku maamulaa ma dimuqraadiyadaa lidinku maamulaa ma federaalkii haddaan ku laabanaa dadka horta hala yidhaahdo qof iyo codba horta intaan la gaarin qofka aragtidiisa iyo fikradaha dadka hala arooriyo waxay raalli ka yihiin dadkay isku raacaan ha lagu dhaqo waddankan injineer cawke cali cusmaan cawkayare ayuu kaasi ahaa oo ka warramayay xaaladda siyaasadeed ee gudaha dalka siyaasado qarsoon iyo qosolaan qalbiga jirin been baa lagu khaldaa si loo qaybiye soomaaliye mid qura noqo taliska ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo ku howlanaa falal amni darro ah iyadoo dhinaca kalena uu sheegay in askarta ciidamada booliiska ay gacanta ku dhigeen askar ka tirsan dowladda soomaaliya oo la sheegay in lacaga laaluusha shacabka ay uga qaadin jireen bar kontarool oo ay magaalada ka dhex samaysteen dhamme sadiiq yuusuf cali afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed oo warbaahinta u warramay ayaa sheegay in maanta ciidamada ammaanka ay ka hortageen qaraxyo la doonayay in laga fuliyo gudaha magaalada muqdisho sadiiq ayaa tilmaamay in ciidamada booliiska ay gacanta ku dhigeen 2 nin oo watay walxaha qarxa kuwaas oo uu tilmaamay in la doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka soomaaliyeed afhayeenka booliiska soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in mid ka mid ah raggaasi lagu qabtay agaarka isgooska ex control afgooye isagoo qarax ku dhejin rabay gaari uu leeyahay mas-uul dowladeed walow uusan shaacin magaca mas-uulkaasi sidoo kale afhayeenka ayaa shaaciyey in ninka kale oo xirnaa jaakad qaraxyo lagu qabtay dhinaca deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho kadib howlgal ballaaran oo ay halkaas ka sameeyeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya in dhawaalada waxaa socda dabahabeyn ciidanka booliiska soomaaliyeed uu amray taliyaha ciidanka oo loogu kuurgelayey sida ciidanka shaqadooda ay u wataan anshaxa akhlaaqiyaadka iyo fulinta howlaha loo qabanayo ummadda kormeer taliyuhu uu sameynayey waxaa ka soo baxay amaro joogto ah sida ciidanku ay ku qabsan lahaayeen shaqooyinka loo egmaday isla markaana loo ilaalin lahaa habdhaqanka ciidanka maalan ciidanka kontaroolada taagan sidii dadka ay ula dhaqmaan waxaan u mahad celinaynaa ciidanka booliiska labadiisa heer booliiska dowlad goboleedyada iyo ciidanka booliiska dowladda federaalka ah iyo shacabka soomaaliyeed oo mar walbana la garab taagan inay nala qabtaan nagalana shaqeeyaan amniga intii lagu jira bishii ramadaan iyo weliba coronaviruska intii uu jiray ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo shacabkuba waxay muujiyeen dhabar adayg iyo bisayl dhanka ammaanka ah oo wax looga qabanayay amniga waxaa jirtay xubno ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ka shaqaynaya bar control oo ka mida baraha magaalada muqdisho ayaa ku kacay fal laaluush ah oo anshax darro iyo sumcad dil ku ah qayimka iyo sharafta ciidanka ciidankii ashtaka dadka shacabka ay noo soo gudbiyeen darteed dabagal iyo baaritaan kadib waxaan gacanta ku soo dhignay ciidankii falka noocaasa ku kacay haddana way xiran yihiin iyagoo eedaysanayaal ah waxayna mari doonaan waxyaabaha shuruucda dalka ay ka qabaan falkaas dhacdadii maanta dhacday waxay ahayd dhagarqabayaal ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab ayaa maantay waxay ku tala galeen in ay baabuur ugu xidhaan muwaadin soomaaliyeed miino walxaha qarxa ah soona ex control ciidanka baarista dembiyada ee c i d da ee ciidanka booliiska soomaaliyeed oo isticmaalaya tabahooda ka hortagga dembiyada ayaa gacanta ku soo dhigay dhagarqabihii isticmaalayey in uu miinada ugu xidho qofka muwaadinka ah waana laga hortegey isagii miinadiina gacantaa lagu dhigay miinadii oo ciidanku ay si la eg dhagarqabo kale ayaa maanta banaanbaxyada intii ay ka socdeen banaanbaxyo nabadeed magaalada ayaa dhagarqabo kale wuxuu ku tala galay in uu isku qarxiyo dadkaas muwaadiniinta shacabka banaanbaxa nabadeed dhiganayey wuxuuna la yimid qarax nooca loo isticmaalo jaakeetka ciidanka ayaa gacanta ku soo dhigay jaakadii qaraxaha iyo dhagarqabihiiba hay-adaha ammaanka ayaa gacanta ku haya waxaana lagu wadaa baaris arrintaa la xiriirta isagana wixii ku soo kordha dib ayaan saxaafadda uga soo sheegi doonaa waxaan rabaa halkaan inuga mahad celiyo shacabka soomaaliyeed oo goor kasta garab taagan ciidamada ammaanka
iyo ciidamada qaranka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo la'aantood guulaha ammaan ee la gaaray bishii ramadaan si amniga loo sugay iyo inta soo socotaba aynan gaari lahayn shacabka la'aantiis mar walba shacabku waana garab taagan yihiin waxaan uga garab istaagga shacabka soomaaliyeed oo ixtiraam iyo sharaf badan naga mudan amniga muqdisho ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ahaa mid degan marka loo eego qaraxyadii horey uga dhici jiray caasimadda inkastoo ay weli ka dhacaan falal liddi ku ah amniga dhiig walaalkii kii quba qooma mau dambayse dhiig walaalkii kii quba qooma mau dambayse midnimada huweeyo xornimada qadariyo isqoonsiga dhexdeena iska dhaafa khaladko isqoonsiga dhexdeena iska dhaafa khaladko qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaanu soo gaarnay wakhtigiina waa uu inaga dhacay guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii xogmaal oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo star stuudio muqdisho maxamed abuukar oo farsameynaya cabduqaadir oo soo saaray halkan ka tabinaya oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo iyo heestii hordhaca barnaamijka dhankoodii way arkeen meel baan se dhaliilayaa way dhammeeyeen dhankoodii way arkeen meel baan se dhaliilayaa maxaa dhimanaa dhaliishay ma lama dhowre dhaliishay maxaa dhimanaa dhaliishay ma lama dhowre dhaliishay waan dhaliilay xafiisyada waan dhaliilay uma wadaa dhammee qaar baan dhaliilay waan dhaliilay xafiisyada waan dhaliilay uma wadaa dhammee qaar baan dhaliilay maxaad u dhaliisha dhaliishe imeeno aad u dhaliishay maxaad u dhaliisha dhaliishe imeeno aad u dhaliishay warqadaha dhambaalka dhan kastaba ka soo dhaca dhagar qabee waxaa jira aan isdhaafinayno miska dhigaanayaa jira warqadaha dhambaalka dhan kastaba ka soo dhaca dhagar qabee waxaa jira aan isdhaafinayno miska dhigaanayaa jira xumakii dhigta wow dhaxal dhulka kii xaada wow dhaxal bal maxaa u dhimanay dhowraya xumakii dhigta wow dhaxal dhulka kii xaada wow dhaxal bal maxaa u dhimanay dhowraya inay kala dhantaalaan dhulka horumarkiisiyo dhismaha iyo hawlaha inay kala dhantaalaan dhulka horumarkiisiyo dhismaha iyo hawlaha kana badan nolosha dhabugu tilmaane dibinoo dhigayo walle kuma dhaafno kan u dhawaaqane dhegta ugu sheegine dhowrsanna waayo walle kuma dhaafno kana badan nolosha dhabugu tilmaane dibinoo dhigayo walle kuma dhaafno kan u dhawaaqane dhegta ugu sheegine dhowrsanna waayo walle kuma dhaafno